رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير ومقالة واشنطن uga qayb galaya shir maaliyadda iyo deyn cafiska Soomaaliya ku saabsan ayaa laga doonayaa inuu ka jawaabo su'aalo badan oo muhiim u ah dadaalka xukuumaddiisa laga doonayo sida lagu daabacay warbaahinta Washington Examiner ee Mareykanka laga leeyahay hay'adda lacagta adduunka bangiga adduunka Kongareeska Mareykanka aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Khayr waxa ay ka codsan doonaan inuu ka jawaabo 10 su'aalood su'aasha koowaad ayaa maxay Soomaaliya wali ugu baahan tahay in ay hesho taageerada caalamka Mareykanka ayaa waxa uu kordhiyay taageerada uu siiyay Soomaaliya waxa uu gaarsiiyay 900 milyan oo dollarka Mareykanka ah halka markii hore uu siin jiray 500 milyan oo dollar Soomaaliya ayaa lacag kale waxa ay ka heshaa beesha caalamka haddaba ra'iisul wasaare Khayr waxa laga doonayaa inuu sharaxo hadii uu jiro wax horumar ah oo dawladdu ay lacagahaas u adeegsatay ee dhinacyada ammaanka dhulka ay maamusho dhaqaalaha iyo waxbarashada su'aasha labaad ayaa muxuu u badan yahay mushaarka laga qaato Muqdisho majalada maqaalkan daabacday ayaa waxa ay qortay in Soomaaliya mushaarku u badan yahay balse adeegyadu ay yar yihiin marka loo eego Somaliland haddii ay Somaliland mushaar yar ku qaban karto shaqo fiican maxaa Soomaaliya u diiday waa su'aal kale oo horta la ra'iisul wasaare Khayr su'aasha saddexaad ayaa muxuu yahay qorshaha lagu la tacaalayo musuqa iyo bililqadu ma ahan kaliya mas'uuliyadda asaasiga ah ee burburkii Soomaaliya hase ahaatee waxa ay kalifeen abaaro iyo macluul wali Soomaaliya heerka ugu hooseeya ayay uga jirtaa kala sareynta musuqa dunida ee Transparency International maxay dawladdu ka qabatay yareynta musuqa imise wasiir ama la taliye ayaad u eriday musuqa dartiis ayaa la weydiin doonaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya su'aasha afraad ee majalada Washington Examiner ay sheegtay in Khayr la weydiin doono ayaa muxuu safarka farmaajo u badan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xafiiska waxa uu yimid isaga oo madaxweynihii ka horeeyay ku dhaleeceeyay safaradiisa badan ee caalamka uu ku aadi jiray isaga oo sheegay inuu wadanka joogi doono hase ahaatee waxa soo muuqday markii uu xafiiska la wareegay kadib in safaradiisu ay isdaba joog noqdeen muxuu Farmaajo uga baahan yahay inuu dibadda u safro miyaysan ahayn shaqada wasiirka arrimaha dibadda inta Farmaajo uu dibadda jiro yaa maareeyo howlaha wadanka waa su'aalo kale oo la weydiin doono ra'iisul wasaare Khayr su'aasha shanaad ee ra'iisul wasaaraha la sheegay in la weydiin doono ayaa Soomaaliya ma badbaadi kartaa markii AMISOM ay dhamaato AMISOM waxa ay mar hore bilowday in si tartiib ah ay wadanka uga baxaan ciidanka Soomaaliyana waxa ay ka cabanayaan mushaar la'aan yaa dacwad loogu soo oogay in mushaarkii ciidanka uu xaday ma rajaynaysaa in Soomaaliya ay al-shabaab iska caabiso haddii ciidankuna aysan filayn in ay dagaalamaan ayaa sidoo kale kamid ah su'aalaha la weydiin doono ra'iisul wasaare Khayr su'aasha lixaad ayaa haddii aad doonaysaan taageerada Mareykanka maxaad heshiiska ula gasheen Shiinaha waxaad Washington u joogtaa in aad kaalmo dheeri ah dalbato dawladdaaduna waxay shati kalluumayso siisay Shiinaha ma rumaysan tahay in Shiinuhu uusan Soomaaliya ku danaysanayn haddii aysan sidaas ahayn maxay yihiin danuhu ayaa sidoo kale la filayaa in la weydiiyo ra'iisul wasaare Khayr inta uu madaxda Mareykanka kula shirayo magaalada Washington su'aasha toddobaad ee lagu xusay maqaalka ay daabacday Washington Examiner ayaa maxaad u weydiisateen maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda inay idin dhexdhexaadiso adinka iyo Kenya ee haddana aadnan go'aanka u sugin dawladda Soomaaliya ayaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda waxa ay sanadkii 2014 geysay dacwad ka dhana Kenya oo la xiriirta muranka badda ra'iisul wasaare Xasan ayaa waxa la weydiin doonaa hoos ma u dhigteen sharciyadii hanaanka markii aad bilowdeen ma aqliya in aad colaysataan Kenya oo Soomaaliya ay ciidankeeda ku tiirsanay 10 sano ee la soo dhaafay su'aasha sideedaad ayaa u dhigan maxay Soomaaliya u galaysaa muranka Israa'iil iyo Falastiin su'aasha sagaalaad ee lagu xusay maqaalkana waxa ay tahay ma rumaysan tahay in Turkigu yahay awood Soomaaliya xasilinaysa halka su'aasha tobnaad ee ugu dambeysana ay tahay maxay yool u tahay midowga Somaliland sanadkii 1991 ayay Somaliland sheegtay inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale hase ahaatee dawladda federaalka ayaa aaminsan in Somaliland ay tahay xubin kamida jamhuuriyaddii la aasaasay sanadku markuu ahaa 1960 ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr ayaa la filayaa in arrimaha Soomaaliya oo su'aalahan ku gadaaman uu kala hadli doono madaxda uu kula kulmayo Mareykanka